degmada Baran iyo degmada Buuhoodle sanadkii hore ee 2020 ayaan barnaamijkeeda gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha in lagu daro degmooyinkii hore u taagnaa. Marka waxaan rabaa inaad ku bishaaraysataan dadaal dheer kadib degmadan Buuhoodle iyo degmooyin kaleba inay ka mid noqon doonaan barnaamijka sanduuqa horumarinta degmooyinka. Waxaan aan ka hadlayno JBLG waxa weeye waa siyaasad lagu horumarinayo degmooyinka. maaha wax kale oo lacag dadka loo soo dirayo meel ku dhacaysa maaha. Mashruuc baan halkan ka fulinay JBLG-ga oo koroonaha loogu talagalay wacyigelintiisa. Degmada hadda berita aan xarig ka jari doono dhaqaalaha aan ku dhisnay wasaaradda arrimaha guduhu halkaas ka yimid. Su'aasha koowaad waxay ahayd barnaamijka horumarinta loo dhan yahay ee degmooyinka ama JBLG-ga dadku u yaqaano muddo ilaa 2008 ayuu soo socday. Maxaa ka reebay degmooyinka qaarkood oo ay ka mid tahay Baran? Waxaan rabaa waa run barnaamijka JBLG-gu wuxuu soo socday muddo 12 hadda waa 12 sano jirsaday. Wuxuuna ka mid yahay barnaamijyada ay iska kaashadaan dowladaha hoose, dowladda Puntland dhexe iyo deeq-bixiyaasha ay iska kaashadaan. waaga hore wuxuu ahaa intaanu hadda ugu nimid 7 degmo awal ahaa 9 baa laga dhigay hadda 11 buu marayaa oo sanadkan hadda aan joogno ayaa 2 degmo hor leh lagu daray. degmooyinka lagu daray marka waxna waa wixii anaga naga horeeyay oo kama jawaabi kara aniga sida waxa ahaayeen. waxna waa hadda siyaasadda aan ku shaqeynayno. siyaasadda ku shaqeynayno waxa weeye degmooyinka buuxiye shuruudaha ee Puntland dhammaantood haddii la ahayd ma barnaamijka JBLG-gu inuu ka hirgalo. waxaan kaloo rabaa dadku inay fahmaan barnaamijkan waxa weeye 3 dhinac ayaa lacagta bixiya barnaamijka wax lagu qabto. waa dowladda hoose oo bixisa qaaraamaadkeeda, waa dowladda dhexe ee Puntland ama wasaaradda maaliyadda oo bixisa qaaraamaad, waa deeq-bixiyaal ku dara qaaraamaad markii labada la isku daro. intaas horta ka kooban yahay. waxaa lagu qabtaa 3 waxyaalood. qayb waxa weeye waxaa lagu dhisaa awoodaha ama waxaan la yiraahdo capacitieska degmooyinka. shaqaalaha loo tababaraa, waxa la siiyaa toolska ama waxay ku shaqeyn lahaayeen, wax walba waxa looga dhigaa inay haystaan. arinta labaadna waxa weeye waxa la yiraahdo service delivery-ga, macnaha baahiyaha caafimaadka haddii MCH loo baahan yahay, haddii meel caafimaad kale loo baahan yahay, haddii primary school loo baahan yahay, baahiyaha caafimaadka aasaasiga ayaa wixii looga qaban karo looga qabtaa. tan saddexaadna waxa weeye waxa horumarinta la yiraahdo khaasatan jidadka iyo inta badan aan u isticmaalo iyo xafiisyada kale oo dhismayaasha iyo quseeya. waxaan marka rabaa inaan idin la socodsiiyo degmada Baran iyo degmada Buuhoodle sanadkii hore ee 2020 ayaan barnaamijkeeda gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha in lagu daro degmooyinkii hore u taagnaa. markaan gudbinay in arinta lagu daro tartiibaad bay u baahan tahay iyo diyaarin. tartiibaadka u baahan tahay waxa kamid ah dhinaca wasaaradda iyo deeq-bixiyaasha iyo dhaqaalaha xaggooda inaanu tartiibaad u sameeyno. tartiibaadkan u sameeyno waxa weeye haatan sanadkii 2020 dhammaadkiisa mashruuc baan halkan ka fulinay JBLG-ga oo koroonaha loogu talagalay wacyigelintiisa. JBLG-gana baxshay Buuhoodlana waa laga fuliyay. degmada hadda berita aan xarig ka jari doono dhaqaalaha aan ku dhisnay wasaaradda arrimaha guduhu halkaas ka yimid. waxaa socda tababaradii iyo toolskii aan ugu talagalay in degmada lagu dhiso aasaasiyaadkeeda. arintaasi marka 2 dhinac ayaan uga faa'iideysanaynaa. dhinacna waxa weeye degmadan inaan u diyaarino barnaamijkaas inay gasho ayada iyo Buuhoodle iyo degmooyin kaleba. dhinaca kalena waxa jira istiraatiijiyad aan wadno wasaaradda arrimaha guduhu wado oo la yiraahdo inaan sameeyno sanduuqa horumarinta degmooyinka. sanduuqa horumarinta degmooyinka marka la sameeyo degmooyinka Puntland oo dhan baa ka faa'iideysanaya. meeshana waxa ka baxaya oo bedelayaa wixii la dhihi jiray JBLG. marka waa inaan ogaanaa sanadkan hadda inuu ku soo aadan ee 2022 waxaan rajaynaynaa in degmada Baran laas qoray haddii u diyaar garooday waxa jira waxyaalo aasaasiyaad kale oo la rabo in la sameeyo.
inaynu haddii lahayd ma si buuxda uga faa'iidaysano buuhoodlaa ka mid ah waxaa ka mid ah meesha la yidhaahdo qandala iyo degmooyin kaleba degmooyinka xataa dib ka aasaasmay ayaa waxaan rabnaa inay soo galaan barnaamijkan insha allah waxyaalaha kale oo ku xeeran waan rabaa iyadana inaad qabsataan waxaa ka mid ah arrin hadaayata la xusay ee la xidhiidha sohodimaha waa su-aasha labaad wey arrinta sohodimuhu waxay ka mid ahayd waxyaalaha caqabadaha ku ah ileen intaynu meesha nimid baan degmooyinka jiray degmooyin ka dhex samayn intaynu meesha nimid baan gobolladii jiray gobollo laga dhex sameeyey haddana dowladihii hore uma istaagin inay u sameeyaan sohodimo xuduudo lama yidhaha sohodimaa la yidhaha uma ay samayn taas waxay keentay waxqabadkii laga qaban lahaa laftiisa inay caqabad ku noqoto iyo shaqadii laga qaban lahaaba meelo dowladdu ay shaqooyin ka qaban lahayd baa waxaa u taagan inaanu marka hore arrintaas afjarro marka waxaan rabaa inaad ku bishaaraysataan dadaal dheer kadib degmadan buuhoodle iyo degmooyin kaleba inay ka mid noqon doonaan barnaamijka sanduuqa horumarinta degmooyinka oo guud ahaan degmooyinkeena dabooli doona oo barnaamijkii bedeli doona JPLG-ga la yidhaahdo government led expansion strategy baa waxay u tahay hogaanka lagu hogaaminayo dowladdu inay expansionka samayso shalay markii aan imaanayno 2019 waanay ka hadlayay gobolkii degmadu waxay ku jireen guri kiraa maanta gobolkii guri waxaan aan ka hadlayno JPLG waxa weeye waa siyaasad lagu horumarinayo degmooyinka ee maaha wax kaloo lacag dadka loo soo dirayo meel ku dhacaysa maaha marka tii way waxa hadda shaqaynaysa ayada ayaan rabnaa inaan iswaafajino oo degmooyinka Boosaaso Baran iyo kuwa kale la midaba inay isku xuquuq noqdaan dhinaca mashaariicda hadii lahayn waa su-aasha koowaad weeye